21 Oktoobar sanadii 1969 waxay ahayd subax bedeshay jihadii siyaasadda qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho waxaa ka yeeray codadka militariga, gaadiid dagaal oo xirtay wadooyinka iyo baaq idaacadeed oo ka imaanayay Radio Muqdisho. Soomaaliya waxay leedahay taariikh ay ku dheehan yihiin rajo, isbedel iyo dhacdooyin weli saameyn ku leh jiilasha maanta nool. laakiin markasta oo la eego wixii dhacay lixdamaadkii iyo 80kii waxaa qalbiga ku soo dhacaya hal xilligii kacaankii militariga ee dalka qabsaday. xilligaa waxaa la sheegay inuu furay bog cusub oo iftiin ah, balse markii dambe isu bedelay bog mugdi ah oo qaranka ku reebay raad aan weligii harin. sheekadan maantay waxaan dib ugu noqonaynaa maalmo lagu sheegay bilow cusub. waxaa jiray dad ku rajo weyn in dalka laga ciribtiro musuqmaasuqii, qabyaaladii siyaasadda gundhiga ka dhigtay iyo nidaamkii daciifka ahaa ee dowladihii rayidka. militarigu wuxuu ballan qaaday cadaalad, horumar iyo nidaam adag oo qarannimo lagu dhiso, waxayna ku dhawaaqeen in waddanku yeelan doono jihayn cusub, mid ka madax bannaan kala qaybsanaan iyo kala tag. laakiin sida badan ee taariikhaha dunidu u shaqeeyaan, rajo kasta waxaa gadaal ka raaca xaqiiqo kale. waxaa bilaabmay isbeddel weyn sida ololihii la dagaalanka akhrisla'aanta, mashruucyo dhismo qaran iyo isku dayo lagu mideynayo bulshada. dad badan waxay markhaati ka ahaayeen horumar muuqda, balse wakhtigaas waxaa qarsooneed nidaam adag oo awoodda hal koox ku urursaday, hadalka shacabka oo la xadiday, doorashooyinka oo meesha ka baxay, iyo mucaarad kasta oo ka hor yimaada oo isna la aamusiyey. intii uu kacaanku dhisnaa wuxuu galay marxalado kala duwan, marar lagu tilmaamo guulo iyo xilli kale oo ay qarxeen dagaallo, cadaadis, khasaare dhaqaale iyo go'aanno muran dhaliyey. ballantii ahayd dib u dhis haddana waxay isu beddeshay burbur aan la xakamayn karin oo ugu dambayn horseeday in dowladdii militarigu ay dhulka ku dhacdo, iyadoo dalka ku sii jeeda dagaal sokeeye oo aanu weli ka soo kaban. haddaba maanta waxaan ku bilaabaynaa safar aan dib ugu milicsanayno xaqiiqda dhabta ah. sidee loo dhisay dowladdii kacaankii Soomaaliyeed? sideese ugu dambayntii loo dumiyey? maxaase sababay in ugu dambayn la waayo sidii uu u socon lahaa oo uu u dumo si lama filaan ah? tan waa warbixin gaar ah oo ku saabsan xukunkii ay Soomaali badan weli ka doodayaan ilaa iyo maanta. magacaygu waa Cabduuli Macallim Aalto, halkanina waa Hogan 24 Media. haddaba haddii aad u aragtay in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iidayso, like saar si aan u ogaano tirada danaynaysa. haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqatay channelkeena, subscribe saar si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino. share dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel.